بسم الله الرحمن الرحيم هذا ويلا تضبطي بركي subaxnimo waxaanu joognaa xaruntii lagu qabanayay sanaaduuqda gobolka Maroodi Jeex ilaa xalay 6dii maqribnimo ilaa hadda waxaanu joognaa inaanu sanaaduuqda qabanno marka si wanaagsan oo habsamilaba u socdaan wali waxa maqan sanaaduuq oo la sugayo ilaa intay dhameystirmayaan sanaaduuqda gobolka Maroodi Jeexna lagu kala dareeri maayo tirada iyo in la tiriyo codkuna iyaduna waa ballan dambe waxa si laakiin inoo dhacday doorasho weyn oo taariikhi ah laba doorasho culayskooga leh doorasho shacabku ay doonayeen inay ku muujiyaan qarannimadooda iyo waxa weeyaan jiritaankooga doorasho asxaabta qarankuna ay hayeen garbaha oo ku niyad sameeyeen doorasho aynu u baahnayn oo muddo dhaaftay oo 3 jeer muddo dhaaftay oo iyada laftigeedana qaranku u baahnaa in dhiig cusub lagu shubo golayaal cusubna la helaa inoo dhacday waxay ku dhacday si nabadgelyo ilaa inta aan war ka hayno sanaaduuqduna waxay ku soo xareedeen si nabadgelyo ciidamada amnigu way dadaaleen meel kasta joogaan waxaanay sameeyeen iyaguna nafhur weyn shacab iyo waxa weeyaan asxaab iyo cid kastaaba way isku kaashatay anagu halkan waxaan u joognaa waxaan ka koobanahay 7 tiriye iyo supervisor waxaan gudoomeynaa waxaan gudoomeynaa waraaqaha codadka sanaaduuqda degmo doorashooyinka dhiida ah iyo deegaanka Hargeysa gudaheega markay dhameystirantana tiradii ayaanu haddana geleynaa marka runtii waan boogaadinayaa shacabka codeeyay xisbi ahaanna anagu marka laga tago codka la tirinayay komishanka rasmiga ah waanu haynaa natiijo hordhaca oo wanaagsan oo boqolkiiba 70 ku dhow oo muraaqibiinta aanu ka helnay iyo systemkii shaqo aan ugu talagalnay inaan codka ku ogaano oo soo bixi doonta maanta ilaa gelika dambe oo doonayno inay ku farxaan oo dhageystaan codeeyayaasha iyo taageerayaasha sharafta leh ee xisbiga wadani qof kastoo codeeyana waanu mahad celinaynaa musharax kasta oo soo baxaana waa musharax qaran oo ummadan wada metelaya waxaanaanu soo jeedinaynaa in mar labaad haddana doorashada kadib amniga gacmaha la isku qabsado natiijada laftigeedana la dhowro waxaanan boogaadinayaa xildhibaanada laftigoogu sida aadka u shaqeeyay ee taageerayaashoodii iyo cududooda muujiyay ayaan iyagana boogaadinayaa way soconaysaa shaqadani sanaaduuqina way maqan tahay waanaanu sugaynaa insha Allah ilaa inta ay shaqadu dhameystirmayso bismillahir rahmaanir rahiim runtii kulmi ahaan waxaan aragnaa in arrin weyn oo guul inoo dhacday waxaan aragnaa arrin aynu muddo sugaynay runtii inay inoo dhacday oo ah doorashooyinkii oo aynu muddo sugaynay maanta inay inoo qabsoomeen waxaan aragnaa gobolka Maroodi Jeex khaasatan oo maanta ay isugu soo xarootay halkan marka laga reebo 3 degmo doorasho ee Balagubadle iyo Salaxley iyo Gabiley marka laga reebo ay halkan isugu soo yimaadeen waxaan aragnaa runtii arrin aad iyo aad farxadeeda u leh in si nabadgelyo ay noogu soo dhamaato in si wanaagsan oo runtii la isku wada qalbi furan yahay ay hawshaasi inoogu dhacdo aad iyo aad wanaag baan u aragnaa iyo farxad magacaygu waa Mustafa Cabdirasaaq Xuseen xogayaha xiriirka laamaha dibadda xisbiga wacid kana mid ah halwadeenada imka xaggan u jooga inay gudoomaan sanaaduuqda soo xarooday waxa xaggan ku sugan xisbigii wacid wakiiladiisii oo dhan shaqada waxaanu bilownay xalay markii goobuhu soo xirmeen laba qaybood baan u shaqeynayno qayb xalay shaqeysay qaybna saakay soo gashay sanduuqyo badan way yimaadeenoo waa la soo xareeyay in kala fara badanna waa la sugayaa anagu ka xisbi ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa guul u soo hooyatay dhammaan Somaliland oo dhan doorasho si nabada si amniya inoogu dhamaatay waa doorashadii ugu horeysay isku sidkan nooceedan oo kala ka dhacda alxamdulillah weeyaan guul bay noo tahay dhamaanteen haddaan nahay reer Somaliland 3 xisbi shacabka iyo xukuumadaba waanan hambalyeynaa inta yar ee hadhayna way iska soo dhamaanaysaa komishankii 3 xisbi intii xagan way ku dhan yihiin
waxaan rajaynayaa ka xisbuucid ahaan haddaan rajadeeda sheego inaan insha allahu bismillaahi kariim rajo weyn ka qabno guud ahaan doorashada gobollada ka dhacaysa sidii aan uga heli lahayn dad labeena oo kuwaaliti leh kolley natiijadu dee komishonkuna way soo saarayaanoo iyagaa xaqule kama dambaynta ah annaguna sistamyo iyo ablicationno iyo howlwadeenno gaaraan diyaarsanay oo howl santara leh taa laftirkeeda gacantan ku haynaayo wax fara badan waan iska haynaa natiijadii insha allah inta yaray noo hadhay in iska samirna weeyaan waxbay nooma harsana waa soo gebagabo intaas baan ku soo koobi lahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.